barasaabka gobolka Hawd Axmed Ciga Maxamed oo maalmihii u dambeeyay kulamo kala duwan la qaadanayay cuqaasha odayaasha waxgaradka culimaadudiinka iyo bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Balli-Gubadle ee xarunta gobolka Hawd ayaa maanta xafiiskiisa shir kula yeeshay dhalinyarada iyo haweenka ku dhaqan magaalada Balli-Gubadle ee xarunta gobolka Hawd. Ujeedada shirkan barasaabka gobolka Hawd maalmihii u dambeeyay la qaadanayay bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa la xidhiidhay sidii si wada jir la iskaga kaashan lahaa guud ahaan horumarinta gobolka Hawd. waxaana shirkan uu barasaabka gobolka Hawd la yeeshay dhalinyarada iyo haweenka ku dhaqan magaalada Balli-Gubadle ee gobolka Hawd hadalla soo dhaweeyna ka jeediyay xubno iskugu jiro dhalinyaro iyo haween waxayna si isku mid ah dhamaantood u ballan qaadeen inay la shaqeynayaan barasaabka cusub ee gobolka Hawd. waxa kamid ah dhalinyarada gobolka Hawd waxaan soo dhaweynaynaa barasaabka cusub Axmed Ciga Maxamed insha Allah waxaan rajaynaynaa wada shaqeyn fiican hadaan nahay dhalinyarta isagana waxaan ka rajaynaynaa insha Allah inuu wada shaqeyn fiican iyo garab qabasho dhalinyarta insha Allah ay keli doonto. marka hore waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka Hawd waxaan kamid ahay ururka wadajir ee gobolka Hawd ka dhisan waxaan aad u soo dhaweynayaa barisaabka oo leeyahay insha Allah adigana waan kula shaqeyn doonaa gacmo furan ku soo dhawo gudoomiye insha Allah waxaan noqon doontaa barisaabkii gobolkan horumar ballaaran oo imika uu hiigsanayo u horseedi lahaa haweenkana waa lafdhabarta gobolka Hawd guud ahaantii degmooyinkiisa iyo gobolka oo dhan si adag baan kula shaqeyn doonaa. gudoomiye aad baan ku salaameynaa waan ku soo dhaweynaynaa waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobolka Hawd kulay gobolka Hawd waa gobol ballaaran waxaan ku leenahay gudoomiye soo dhawow aad noqotid gudoomiyihii maxaan ku raayay horumar aan ku faano maxaan ku raayay noo hiigsada gudoomiye dumarkani waxa weeyaan waa dumarkii ururada gobolka Hawd dhalinyar kale ku jirta waan ku soo dhaweynaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba gudoomiye soo dhaw baan ku leenahay. waxa isna halkaasi ka hadlay xogayaha gobolka Hawd Maxamed Faarax Suugal run ahaantii kulankan saaka xafiiska gobolka Hawd ka dhacay waxa uu daaranaay ugu horeysay waxa weeyaan waa isbarashada dhalinyarta iyo gudoomiyaha gobolka Hawd sidoo kale waxa meesha ay dhalinyartu kula wadaageen gudoomiyaha waxyaabaha ay u baahan yihiin iyo sida loola shaqeynayo anigoo ah xogayihii gobolka Hawd aniguna aan kamid ahay dhalinyarta gobolka waxa si gaar ah la shaqeyn doonaa dhalinyarta gobolka Hawd. gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Hawd Axmed Ciga Maxamed aad iyo aad baad inuu mahadsantihiin waan soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay waan la shaqeynayaa insha Allah taala waxaan halkan kaga wada hadalay arrimo dhowr ah horumarinta amiga dhalinyarada waxa ku jira horumarinta gobolkooda Hawd wixii insha Allah taaniguna waxaan diyaar u ahay inaynu halka maanta aynu joogno hore uga dhaqaaqno garbaha isqabsano meel kasta waxay naga xidhan yihiin inaynu albaabadeeda garaacno inaynu inagu wax qabsano inagu iska bilowno oo mashaariicda maxaa la yiraahdaa socota iyo kuwa aynu hal abuur ku sameyn doono insha Allah inaynu contribution amba waxa la yiraahdo qaadaan inagu aynu iska ururino ku bilaabi doono cid kasta oo waxay naga xidhayin marka aynu waxaana waanu haysanaa waxaana naloo qabto waxaad ogaataan in cid walba marka albaabadoodu inoo furayaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. Maxamed Jiciir Axmed TV qaranka Soomaaliland magaalada Balli-Gubadle.